soo dhawaada bal hawweesoo doodoo goora tarjii harada ka jira dhaagno. dadkani ma ahan Soomaali balse waxay aad ugu eg yihiin dadka Soomaalida. ku soo dhawaada muuqaal xiiso badan oo ku saabsan qowmiyadda Rindiila. bartamaha gobolka waqooyi ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan qowmiyad lagu magacaabo Rindiila, kuwaasoo ishabahan Soomaalida dhanka muuqaalka, dhaqanka iyo afka. Soomaalida iyo bulshada Rindiilaha waxay ka midaysan yihiin luuqadahooda iyo dhaqankooda aad isugu eg, inkasta oo xiriirka dhalasho ee ka dhexeeya labadan qowmiyadood aysan dood ka taagnayn. haddana waxaa jiro aragtiyo kala duwan oo ku saabsan sida ay u kala tageen. dadka Soomaalida ah qaar ayaa sheegay in ay ahaayeen mid ka mida qabaa'ilka Soomaalida, balse xurguf dhex martay beelaha kale ee Soomaalida awgeed ay uga guureen dhulkii hore u deganaayeen, iyaga oo degay dhulkay hadda degaan ee waqooyiga dalka Kenya. laakiin lama hayo caddaymo xooggan oo lagu dhisay ama taariikh qoto dheer oo faahfaahinaysa sida ay Soomaalida iyo bulshada Rindiilaha ay wax uga dhexeeyeen. laakiin waxaa la rumaysan yahay in iyaga iyo Soomaalidu hal meel ka soo wada jeedaan oo ay yihiin qabiilo fac ahaan siman. waxay ku wada abtirsadaan bulshooyinka Kushitiga oo ay wadaagaan qowmiyadda Oromada iyo kuwa kale. Rindiila waa dad dhaadheer oo dhuudhuuban sida Soomaalida iyo qabaa'ilada kale ee Kushitiga. waxay isugu jiraan maarin iyo madow sida Soomaalida. wejiga iyo sanqaroorka aan ballaarnayn ee dadka Rindiila waa mid ka mid a astaamaha ugu horreeya ee muujinaya qaab dhismeedka wejiga ay Soomaalidu leedahay. sida ka muuqata sawirkan, waxay leeyihiin timaha Afrikaanka ah ee jileeca xiga sida Soomaalida oo kale, balse waxay sidoo kale leeyihiin timaha isku dhafan sida qowmiyadaha Bantuuga. sida Soomaalida oo kale, bulshada Rindiila waxay dhaqdaan geela. Rindiila waa dad reer guuraa ah isla markaana xoolaha dhaqda si la mid ah Soomaalida. waxay dhaqdaan saddexda nooc ee Soomaalidu dhaqato sida geela, lo'da iyo ariga. si la mid ah Soomaalida, Rindiila ma ahan bulsho magaalo, waxayna u badan yihiin dhulka miyiga ah maadaama ay xoolo dhaqato yihiin. waxayna xilliyada kala duwan ee sanadka u guuraan meelo kala gedisan oo ah isla deegaanka ay ku dhaqan yihiin si ay xoolahooda ugu raadiyaan daaqsin iyo biyo. ragga ka soo jeeda qowmiyadda Rindiila waxay xirtaan maro ay sida macawista oo kale u guntadaan, balse ay badanaa ka xirtaan meelo ka sarraysa halka macawista laga xirto, iyo mararka qaar mid ay u isticmaalaan sida maradii qaydka la dhihi jiray ee Soomaalidii hore xiran jirtay. waranka iyo gaashaanku waa astaan kaloo caan ku yihiin ragga Soomaalida iyo Rindiilaha labaduba. ragga iyo dumarka Rindiila ayay labaduba xirtaan kuulo fara badan oo ay ku xirtaan meelo kala duwan oo jirka ka mid ah sida luqunta, jinta iyo dhexda. mararka qaarna waxay jeeni qaarsadaan kuul dheer oo midabo kala duwan leh. dumarka Rindiila waxay xirtaan garays iyo mara kale oo ay isticmaalaan sida guntiinada, kuusha oo ah nooca yaryar balse loo farsameeyey qaababka suunkii hore ee Soomaalida ee jaclaha la dhihi jiray ayay ku xirtaan gacanta ilaa jinta. isla kuusha ayay dumarku ka samaystaan koofiyad inta badana ka bannaan qaybta sare ee madaxa. dhegaha ayaa u duran dumarka Rindiila, badankoodna waxaa ugu jira dhagadhago u samaysan sida fargashiga ama faraantiga. waxay leeyihiin ciyaaro dhaqameed u eg dhaantada, taasoo ay raggu guuxaan halka dumarkuna ay haysaan. xilligan casriga ah oo baraha bulshada isku xiray dad badan oo aan awal xiriiri karin, ayay dadka Rindiila ee magaalooyinka dega waxay aroosyada ka shidaan heese Soomaali ah. waxyaabaha soo jiidashada leh ee ku saabsan xiriirka ka dhexeeya Soomaalida iyo Rindiila waa afka. waxaa baraha bulshada ku soo badanaya da'yarta Rindiila ee ka hadla siday isugu dhow yihiin afafka Soomaalida iyo Rindiila. waxaad sidoo kale arkaysaa Soomaali ka hadlaysa ama qof Rindiila ah kala sheekaysanaysa erayada isku midka ah ee labada af. waxaadna ogaanaysaa in afkan uu yahay afka aan Soomaaliga ahayn ee ugu soo dhow luuqadda Soomaaliga. si kastaba ha ahaatee, afka Rindiila wuxuu aad ugu dhow yahay lahjadda Soomaaliga ee loo yaqaano mayga marka la eego erayada iyo qaabka jumlooyinka loogu dhawaaqayo. balse waxaad sidoo kale ku arkaysaa erayo aad garanayso inay yihiin kuwaan afka Soomaaliga ee casriga aad loogu adeegsan, inkastoo laga isticmaalo meelo ka mid ah deegaanka Geeska Afrika.